kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta hawada nagala socotay waa habeenimo ay isniini soo galayso taariikhduna waa 6 bisha 12 2020 kusoo dhawaada daawadayaal warar degdega oo haddana soo gaadhaya isla markaasina sheegaya in gacanta lagu dhigay hogaamiyihii TPLF Debretsion Gebremichael aan ku bilownay daawadayaal warar haddana soo gaadhaya ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada militariga Itoobiya oo maanta dagaal aad u xooggan iyo sidoo kale duqeymo wadaya isla markaasina sheegay in ay la beegsanayaan madaxda ugu sarreysa ee TPLF ayaa waxa hadda soo baxaya warar sheegaya in gacanta lagu dhigay hogaamiyihii TPLF Debretsion Gebremichael isla markaasina ahaa madaxweynihii gobolka Tigray dadka reer Itoobiya ayaa waxa ay si weyn baraha bulshada sida Facebook iyo Twitter-ka ay u soo galinayaan qoraallo ay ku sheegayaan in la qabtay Debretsion Gebremichael iyo sidoo kale qaar kale oo kamid ah madaxda sarsare ee TPLF sida aad ku aragtaan daawadayaal qoraalladaasi aanu screenshot-ka ka soo qaadnay ee sheegaya in gacanta lagu dhigay Debretsion iyo sidoo kale madax kale oo TPLF waxa si weyn baraha bulshada ugu baahinaya dadka reer Itoobiya inkasta oo inaga aynaan xaqiijin karin in arrintaasi ay sugan tahay iyo in kale isla markaasina aanu isku daynay in aanu xiriir la sameeyno dad meelahaasi ka agdhow oo marar kala duwan aanu xogaha ka raadin jiray haddana ma aysan noo suurtagelin in dadkaasi iselo sidoo kalena ma jiro war rasmi ah oo xaqiijinaya in ninkaasi iyo rag la socday gacanta lagu dhigay balse wararkani ayaa si weyn isu soo taraya iyada oo baraha bulshada si aad ay ugu baahinayaan dadka reer Itoobiya waxa ayna sheegayaan in ninkaasi iyo rag la socday qaar kamid ah gacanta lagu dhigay sidoo kale raggani ayay sheegayaan in aysan dhiman isla markaasina dagaal aad xooggan oo maanta ka dhacay deegaanada ay ku sugan yihiin markii xaaladdu ay khadhaadhatay isla markaasina ay ku qiimeeyeen in ay dhimanayaan haddii dagaalku sidaasi uu ku sii socdo inay doorteen inay isa soo dhiibaan si kastaba ha ahaatee ciidamada militariga Itoobiya ayaa la ogaa in maanta weerarkii ugu xumaa intii magaalooyinka laga qabsaday TPLF kadib inay ku qaadeen deegaano ay sheegeen inay ku sugan yihiin madaxda sarsare ee TPLF weerarada ayaa waxa ay ahaayeen kuwa cirka iyo dhulka ah iyada oo diyaaradaha dagaalka ay horboodayeen ciidamada militariga Itoobiya iyo sidoo kale ciidamada dalka Eritrea ee qaybta ka ah dagaalka ka soconaya gobolka Tigray duqeymaha saa'id ayay u badnaayeen madaxweynaha TPLF la sheegayo in hadda la qabtay Debretsion Gebremichael oo isagu maanta niskii hore la hadlay wakaalada wararka ee France 24 ayaa waxa uu sheegay in xaaladoodu ay fiican tahay isla markaasina ay joogaan dhulka gobolka Tigray ayna dagaalkii ku jiraan isaga oo sheegay in aysan marna isdhiibayn ayna la dagaalami doonaan wax uu ku sheegay kuwa ku soo duulay dhulkooda isla markaasina si weyn u eedeeyay dalka Eritrea isaga oo sheegay in ciidamada ka imaaday dalka Eritrea ay qayb ka yihiin dadka boobka iyo bililiqada ka geysanaya magaalada Maqala ee caasimadda gobolka Tigray xilligaasi uu France 24 la hadlayay madaxweyne Debretsion ayaa waxa uu baaq u diray beesha caalamka isaga oo sheegay in la soo garab istaago dadka ku nool gobolka Tigray oo uu sheegay in xaalad bini'aadminimo oo aad u daran ay la soo daristay dagaalka ka soconaya gobolka Tigray oo galay maalintiisii 3 isla markaasina ciidamada militariga Itoobiya ay u suurta gashay in gabi ahaanba magaalooyinka waaweyn iyo deegaano kale oo badan in ay kala wareegaan TPLF ayaa hadda waxa uu maraya xilli uu u muuqdo in uu gabagaba yahay inkasta oo dad badani ay qabaan in TPLF duurka ay galayso ayna jabhadayn doonto isla markaasina ay waqti qaadan doonto in la soo gabagabeeyo dagaalkaas ama aanba la soo gabagabayn doonin ee dagaal ku dhufo oo ka dhaqaaqa ay ka bilaabi doonaan gobolkaas iyaguna mar walba ay sheegayaan in ay sii dagaalami doonaan si kasta oo suurtagal ah oo dagaalkooda uu ku sii socon karana inay sameynayaan haddana lama garanayo meesha uu ku dambayn doono mustaqbalka dagaalka xooggan ee ka aloosan gobolka Tigray ee dowladda uu hogaaminayo Abiy Ahmed ay ku qaaday maalinimadii shalay bay ahayd markii kumanaan kamid ah ciidamada militariga Itoobiya oo laga soo badbaadiyay maleeshiyada iyo ciidamada TPLF ay ka hadlayeen dhibaatooyin aad u daran oo ay sheegeen in TPLF ay kula kacday intii ay gacanta ku haysay iyaga oo sidoo kalena ka warbixiyay xilligii lagu weeraray saldhigyadii ay kaga sugnaayeen gobolka Tigray ciidamadaasi oo ahaa qaybtii waqooyi ee ciidamada militariga dalka Itoobiya oo TPLF markii dagaalku u bilaaban rabay ay xaryahooda ugu daadatay
isla markaasina ay qaqabteen iyaga oo gebi ahaanba hubkii ay haysteenna ka qaatay si kastaba ahaatee isha ayaa lagu hayaa xaalada gobolka Tigray iyo mustaqbalka sida uu ku dambeeyo iyo sidoo kale haddii ay run tahay hadalkan tirada badan ee isa soo taraya ee dadka ka soo jeeda Itoobiya ee isugu jira siyaasiyiinta iyo shacabka ay ku sheegayaan in gacanta lagu dhigay hogaamiyihii TPLF Debretsion Gebremichael iyo madax kale haddii hadalkaasi uu run noqdo oo sida dadkaasi ay u sheegayaan u noqdana waxaa loo badinayaa in dagaalku uu soo gabagaboobi doono isla markaasina laga yaabo in laga baaqsado jabhadeyntii laga cabsanayay in TPLF ay bilowdo iyada oo aynu ognahay in dagaal aad u xooggan ay ka soconayeen dalka Itoobiya gaar ahaan gobolka Tigray dagaaladaasi oo la sheegay in meesha lagaga saarayo xisbiga TPLF ee 27 sano ee la soo dhaafay ka arriminaya gobolka Tigray iyo guud ahaanba dalka Itoobiya ay ka soconayeen gobolkaas ayaa haddana waxa soo baxaya khilaafaad xooggan kuwaasi oo ka dhex jira ciidamada militariga Itoobiya iyo sidoo kale meel kasta oo ay ku sugan yihiin dadka ka soo jeeda qowmiyadda Tigray aan ku horeyna dhinaca Soomaaliya waxa la sheegayaa in ay ku dagaalameen ciidamada Itoobiyaana kuwaasi oo u kala baxay laba qaybood iyada oo la sheegayo dagaalku in uu ku bilowday arrimaha la xiriira dadka soo jeeda gobolka Tigray wararka laga helayo gobolka Hiiraan ee dalka Soomaaliya ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada Itoobiya ee ku sugan halkaasi ay dhexdooda dagaalameen kadib markii qaar ka tirsan la isku dayay in hubka dhigis lagu sameeyo xogaha aanu helayno ayaa waxa ay sheegayaan in saraakiisha ciidanka Itoobiya ee ku sugan deegaanka halgan la siiyay amar ah in ay hubka ka dhigaan ciidamada xarunta ku sugan ee ka soo jeeda Tigray taasina ay dhalisay isku dhac labada dhinac iyada oo la sheegay in dagaal xooggan uu dhexmaray laba askari ayaa waxa ay warar ku sheegayaan in labada dhinac ay uga dhimatay israsaasaynta oo socotay muddo badan waxaana saldhigaasi la sheegay in uu ka socdo howlgal lagu xidhxidhayo askarta ka soo jeeda qowmiyadda Tigray inta la ogyahay ilaa iyo hadda 300 oo askari oo ciidamada Itoobiya ee gudaha Soomaaliya jooga kana soo jeeda qowmiyadda Tigray ayaa hubka laga dhigay waana howlgal socday tan iyo markii uu bilowday howlgalka dawladda Itoobiya gacanta ay ugu soo dhigayso gobolka Tigray inkasta oo aan si rasmi ah loo ogeyn saldhigga uu weerarka iyo dagaalku ka dhacay haddana waxa ay xaqiijiyeen dadka deegaankaasi in xabadu ay soconaysay muddo ka badan 2 saacadood balse qaar ka mid ah ciidamada militariga Itoobiya ayaa waxa la sheegay in ay dadka u sheegeen in halkaasi 2 askari ay uga dhimatay lamana rumaysanin hadalkaas sida ay wararka sheegayaan maadaama oo dagaalku waqti aad u dheer u soconayay sida aynu ognahay askarta ka soo jeeda qowmiyadda Tigray ee ku sugan gudaha Soomaaliya isla markaasina kamid ah ciidamada AMISOM ayaa waxa la sheegaya in gabi ahaanba hubka laga dhigay iyada oo ilaa iyo hadda hubka dhigistu ay socoto askarta hubka laga dhigay ee ka soo jeeda Tigray waxa ay ku sugan yihiin askarta ilaa iyo hadda hubka laga dhigay ee ka soo jeeda qowmiyadda Tigray ayaa waxa ay ku sugan yihiin gobolada Baya iyo Bakool balse qaybta gobolka Hiiraan waxa ka dhashay khasaare xooggan iyada oo ay dagaalameen kadib markii la isku dayay in hubka laga dhigo warbaahinta Bloomberg ee Mareykanka laga leeyahay ayaa waxa ay warisay in Itoobiya ay Soomaaliya ka saartay 3,000 oo askari kuwaasi oo dib loogu daadgurayay dalkooda si ay gacan uga geystaan dagaalka lagu qaaday gobolka Tigray sida ay sheegeen ila wareedyo lagu kalsoon yahay sidaas si lamida warbaahinta Bloomberg waxa ay warisay in ciidamada laga saaray Soomaaliya aysan qayb ka ahayn 5,000 oo askari oo Itoobiyaan oo howlgalka nabad ilaalinta AMISOM ka tirsanaa qorshahani ka dhanka saraakiisha iyo sidoo kale ciidamada Tigray ayaa mid aad u qodo dheer oo dhinac walba looga beegsanayo xilli uu socdo dagaalka u dhaxeeya dawladda uu hogaaminayo Abiy Ahmed iyo sidoo kale maamulka gobolka Tigray sababta loo saarayo saraakiisha iyo ciidamada Tigray ayaa waxa lagu sheegay in ay tahay in aan la isku halayn karin cadaaladooda isla markaasina wax aan loo fadhiyin ay ka dhaqaaqi karaan dhanka kale daawadayaal warar haddana soo gaadhaya ayaa waxa ay sheegayaan in duqeymo iyo weliba weerar cir iyo dhul ah laga geystay meel ay ku sugnaayeen madax sarsare oo ka tirsan TPLF ilo xogogaala ayaa waxa ay warinayaan in weerar cirka iyo dhulka lala beegsaday meel ay ku sugnaayeen qaar ka mid ah hogaamiyayaasha TPLF waxaana la sheegayaa in ciidamadu ay beegsadeen nin lagu magacaabo alam gabra waaxid oo ka mid ah guddiga fulinta ee TPLF weli se lama shaacin khasaaraha ka dhashay
weerarkani ah cirka iyo dhulka. Maalinimadii shalayto ayuu sargaal sare oo ciidamada dowladda Itoobiya u hadlay waxa uu sheegay in maamulkii TPLF ay ku daba jiraan isla markaasina meel kasta oo ay fadhiistaanna ay daba socdaan, isaga oo sheegay in aysan ka hadhayn inta ay kasoo qabanayaan ama meydkooda ay kasoo arkayaan. dhanka kale dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ay joojinayso barnaamij lacag badan ay ku bixi jirtay oo laga fulin jiray gudaha badda Soomaaliya, isla markaasina lagu sheegi jiray in burcad badeeda Soomaalida lagula dagaalamayo. dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in wixii hadda ka dambeeya ay doonayso in meesha laga saaro guddiga xiriirka ka hortagga burcad badeeda xeebaha Soomaaliya. guddigani oo la aas-aasay in ka badan 10 sano ka hor, ujeedkiisuna uu ahaa guddi wargelin iyo xiriirinta howlaha la xiriira xeebaha Soomaaliya, waxaana sanadkii 2008 qaraar ay soo saareen golaha amniga ee qaramada midoobay lagu hirgeliyay guddigan, maadaama oo xeebaha Soomaaliya ay xilligaasi aad ugu badnaayeen falalka la xiriira burcad badeeda. dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa ay dalbatay in meesha laga saaro guddigan, waxa ayna sheegeen in sababta aan loogu baahnayn ay tahay maadaama oo Soomaaliya ayna 3 sano ee la soo dhaafay xeebaha aan lagu arkin falal burcad badeednimo. guddigani ay Soomaaliya rabto in meesha laga saaro ayaa la sheegay in ay heli jireen dhaqaale aad u badan oo loo adeegsan jiray ka hortagga iyo sidoo kale yaraynta falalka burcad badeednimada. hase yeeshee dowladda ayaa waxa ay ku adkaysanaysaa in xilligan aan loo baahnayn. dhaqaalaha guddigaasi waxaa loo adeegsan jiray xabsiyo iyo sidoo kale maxkamado dadka burcad badeeda lagu soo qabto sida la sheegayo la saaro, balse nasiib darro xabsiyadaasi ayaa waxaa laga dhisay dalalka Tanzania, Kenya iyo Seychelles. marka waxaanu leenahay baahida arrintaasi ma jirto oo dowladda Soomaaliyeed waxa ay leedahay awood ay ku maxkamadaynayso dadka dambiyada ka gala oo maxkamad la soo saaro, ayuu yiri Danjire Abuukar Baale oo ah danjiraha Soomaaliya ee qaramada midoobay. inkasta oo guddigaasi la siiyay muddo sanad ah ayaa haddana dowladda Soomaaliya waxa ay sheegtay in ay hor istaagtay lacagihii la siin jiray guddigaas, waxaana Abuukar Baale uu sheegay in haatan ay adkaan doonto in guddigaasi ay shaqeeyaan maadaama oo dhaqaale aan lagu bixin doonin. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayuu sheegay in uu aqbalay in dib u eegis lagu sameeyo howlaha ay qabtaan guddigaas sanad kadibna la isla eegi doono. hase yeeshee guddiga xiriirka ka hortagga burcad badeeda xeebaha Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in ay ku howlan yihiin sidii loo sii wadi lahaa howlahaas. Danjire Abuukar Baale ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in dhaqaalahaasi ay tahay mid lagu dhiso ciidanka badda Soomaaliya, kuwaasi oo xeebaha dalka ka ilaalinaya burcad badeeda, maraakiibta qashinka ku shuba iyo sidoo kale kuwa sharci darrada uga kalluumaysta. si kastaba ha ahaatee guddigani ayaa u muuqda in meesha laga saaraya iyada oo guddigan dhaqaalaha tirada badan uu ku baxo mas-uulka ugu sarreeya uu yahay Kenyaana. dadka qaarna ay qabaan sababta dowladda Soomaaliya ay isugu dhabar jabinayso in guddigaasi meesha laga saaro in ay qayb ka tahay xiriirka labada wadan ee xumaaday.